Sheekadu waxay ku bilaabmaysaa halkaas jeel ku yaal dhankaas Mareykanka. Waxaana ina barayaa Bill iyo Wade. Bill waa maamulaha jeelka. Bill iyo Wade waxay daawanayaan filim lagu magacaabo The Human Side. Sheekadu filimka waxay ku saabsan tahay nin isku xiriir 10 nin oo kale. Bill wuxuu la yaabaa ninkaas wax uu sameynayo. Diisi waxay ay sheegtaa inay jeceshahay filimka. Bill wuxuu ku xanaaqayaa haweeneyda. Wax yar kadib Bill waa la soo wacaa waxaana loo sheegaa inuu xabsiga ka dhashay fowdo. Bill iyo Wade waxay aadayaan. Labadoodu waxay sheegayaan haddii ay xakameyn waayaan jeelka waxay ku waayay doonaan shaqadooda. Kadib waxaa la intusiyaa maxbuus la dhaho 297. Maxbuusku wuxuu hanjabayaa Bill. Intaas kadib waardiye ayaa la laawacaya waxaana meesha imaanaya doctorka jeelka oo lagu magacaabo Jones. Wuxuuna isku dayaa inuu badbaadiyo. Ficilkaas waxaa geysanaya maxbuus lambarkiisu yahay 178. waardiyaashan waxay la dagaalamayaan maxbuuska. Bill wuxuu amar ku bixinayaa in laga jabiyo gacanta midig. Maxaabiista kale dhammaan waxay u hanjabayaan Bill. Billna wuxuu xanaaqaa wuxuuna bilaabaa rasaas. Intaas kadib Bill wuxuu imaanayaa dhankaas xafiiska. Bill wuxuu dhahaa waa in la sameeyo qaabihii hore. Wadena wuxuu dhahaa ciqaabahaas muran ayaa laga soo gudbay. Meesha waxaa imaanaya DC oo wadata kartoon hore. Inkastoo aysan garanayn waxa ku jira gudaha kartoonka, waxaa ku jira xubnaha dumarka. Isla markaana uu cunaa Bill. wuxuuna sheegaa inay siinayso awood zaid ah. Ilaaliyaasha jeelka waxay sheegayaan inuu maxbuus kala sameeyay dhibaato. Markii xigta waxaa arkaynaa Bill oo xanuunsanaya. Xanuunkiisana waa walwalka. Wuxuuna u hanjabaa Dr. John. Wuxuuna u sheegaa haddii uu si degdeg u daaweyn waayo inuu madax ruf ka sii doono. Maxbuuskii dhibaatada sameeyay waa 346. Bill iyo kooxdiisa waxay bilaabayaan inay ciqaabaan maxbuuska. Wuxuuna dalbaday in loo keeno biyo karkaraya. Kadibna wuxuu ku daadinayaa maxbuuska wajigiisa biyihii kululay. Maxbuuska zaid ay u qeylinayaa waxaana jeelka soo booqanaya gudoomiyaha jeelka oo lagu magacaabo Hodges. Bill wuxuu bilaabaa inuu gudoomiyaha siiyo sigaar, laakiin gudoomiyaha uu ka diidaa oo wuxuu leeyahay dooqeyga maaha. Gudoomiyaha wuxuu ku leeyahay haddii aadan xakamin maxaabiista waxaad waayi doontaa dhammaan shaqadaada. Gudoomiyaha markuu tagay Bill wuxuu isku dayaa inuu caawiyo. Bill wuxuu ciqaabaa maxaabiista wuxuuna ku ciqaabaa qorraxda. Waxaana lagu tijaabinayaa maxbuuska lagu magacaabo 297. Bill wuxuu soo qaadaa madukal kadibna wuxuu ka soo saaraa xaniyaha. Maxbuuska wuxuu bilaabaa inuu qeyliyo. Bill wuxuu u galmoodaa DC kadibna wuxuu cunayaa xaniyaha maxbuuska. Intaas kadib Bill wuxuu la soo baxaa cajallo ku jiro filimo la dhaho Human Centipede. kadibna wuxuu tagaa meesha la geeyo dhaawaca. kadibna wuxuu markale ciqaabaa maxbuuskii laga goobo wajiga. wuxuuna faraha ka jabaa maxbuus kale. kadibna wuxuu tagaa maxbuuskii lagu magacaabo 297. Billna wuxuu bilaabaa inuu xoojiyo maxbuuska. Muddo kadib waxaa arkaynaa Bill oo jiifo musqusha. Wadena wuxuu leeyahay waa inaan sameyno ciqaabihii filimka Human Centipede camal. Billna waa uu ka soo horjeesanaa fikradahaas. Wade nasiib wanaag Bill wuu aqbalaa ciqaabaha Wade. mar kale ayuu cunaa xubinta taranka iyo dumarka. Muddo kadib waxaa la ina tusayaa inuu imaado maqaayadda jeelka waxaana meesha ka soo buuxsamay maxaabiis. waxayna bilaabaan inay garaacaan Bill laakiin waxaa la ina tusayaa Bill oo soo kacaya laakiin waxaas dhariya ayay ahaayeen. ugu dambeyntii jeelka waxaa imaanaya Tom waana directorka filimka Human Centipede. waxaana meesha imaanaya Dr. John. waxayna isku raacayaan dhammaan inay adeegsadaan maxaabiista. waxayna bilaabayaan inay isugu xiriiraan midba mid kale. mid kastana waa inuu cunaa kan kale sahridiisa. kan ugu horeeyana wuxuu la sii doonaa cunto aad u wanaagsan. ugu horeyn inta aysan bilaabin ciqaabaha waxay daawasiinayaan ciqaabaha filimka Human Centipede dhammaan maxaabiista dhammaan waxay bilaabaan inay ka soo horjeestaan ficiladaas. Billna wuxuu bilaabaa inuu rasaas ku rido. maxaabiistuna waxay soo weeraraan Bill iyo kooxdiisa waxayna soo jebiyaan jeelka. Bill iyo Wade waxay bilaabaan inay koraan dhismaha kore laakiin DC waxay ku tuuraan dibadda. maxaabiista meesha ayay isugu yimaadaan waxayna garaaceen DC. qayb ka mid ah waxay bilaabaan inay kufsadaan DC. Wade wuxuu bilaabay inuu waco ciidamo kale. Billna wuxuu isku tuuraa daaqadda. wuxuu doonayay inuu ka badbaado maxaabiista. ugu dambeyntii waxaa meesha imaanaya ciidamada. qayb ka mid ah maxaabiista waxay isku dayaan inay ka baxsadaan jeelka laakiin uma suurtagelayso. waxaana arkaynaa Bill oo cabsanaya waxaana loo sheegaa waxa ku dhacay DC. Bill wuxuu soo qaadanayaa qori lagu soociyo dadka wuxuuna suuxinayaa dhammaan maxaabiista. waxoogaa kadib wuxuu imaanayaa meesha dhaawacyada wuxuuna u sheegayaa inay bilaaban doonto ciqaabta. wuxuuna u hanjabayaa dhammaan maxaabiista. Bill wuxuu u yimid DC wuxuuna mar kale faraxmaynayaa DC cunaa xubintii wuxuuna sheegayaa Wade inay tahay mid ugu dambeysay oo cuno. maxaabiista waxaa loo saaraa dibadda. Bill wuxuu wacaa gudoomiye Hodges. maxaabiista waxaa laisugu xiraa sidii mascamal. mid kastoo ka midana waxaa la siinayaa kan kale sahridiisa ilaa kan ugu horeeya maahane oo la sii doono cunto aad u fiican. gudoomiyaha wuxuu ka yaabaa waxa ay sameynayaan labadooda. Billna aad buu ugu faraxsan yahay waxa uu sameynayo. waxayna u yimaadaan mid ka mid ah maxaabiista oo la sii deen doono laakiin nasiib wanaag ma uusan qonin sida loogu hadlo Ingiriiska. ugu dambeyn waxay ka saaraan jeelka. Bill wuxuu go'aansanaa inuu dhameeyo Wade taasina waxay ahayd fikradiisa hore. Billna wuxuu u dhameynayaa doctorka. si lama filaan ah Hodges wuxuu arkaa Bill oo wato biskoolad. wuxuu dhahaa adiga waxaa samaysay shaqo aad u fiican. Wade wuxuu u sheegay inuu rabo in la ammaano maadaama ay tahay fikradiisa. Bill wuxuu bilaabay inuu laabto geliyo Wade kadibna wuxuu sameeyay inuu toogto. dhammaadka filimka waxaa la ina tusayaa Bill oo ku qeylinaya maxaabiistan ay yihiin sida maskax.